assalaamu calaykum daawade ma isweydiisay sidee ayaa uu bani aadamku uga soo gudbay adeegsiga hubka gacmaha la iskula tegi jiray ee seefaha warmaha iyo leebka ilaa la soo gaadhay adeegsiga hubkan casriga ah ee aynu naqaano oo hadda la marayo diyaaradaha aan dooliyaha lahayn ee hawada sare wax ka duuqeeya sidoo kalena loo adeegsan karo falal basaasnimo. daawade inta aynaan bilaabin falanqaynta xogahani koobkaaga shaaha ha soo dhaweyso barnaamijkana sii sheergaree si uu gaadho saaxiibo kale oo danaynaya inay warbixinaha noocan ogaadaan. mahadsanid. seefta, falaarta iyo waranku waxay ahaayeen waxyaabaha ugu muhiimsan ee agabka militari ee ciidamadu adeegsan jireen in ka badan 1000 sano ka hor. ikhtiraacida madfacyada ayaa saameyn ku yeeshay qaabka iyo hababka dagaalka iyo xataa bulshooyinka guud ahaan. kahor ikhtiraacida hubka casriga ah waxay ahayd 500 ilaa 1000 sano ka hor markii xataa imaam axmed ibraahim oo loo garan og yahay axmed gurey ay ku dagaalamayeen xabashada Itoobiya iyagoo isticmaalaya warmo iyo seefo. caalamka kalena sidaas ayaa uu ahaa, balse waxay wax waliba isbedeleen qarnigii 16aad inkasta oo tadawurka hubka casriga ahi uu soo bilaabmay qarnigii 10aad. bilowgiisii waxa uu ka soo unkamay Shiinaha markii koox alkimiistayaal ahi ay isku dayeen inay sameeyaan maaddo ka ilaalinaysa gabowga iyagoo isku daraya milix, baaruud, dhuxul iyo maadada potassium nitrate, balse waxay si lama filaan u ogaadeen maadadan ka dhalatay isku darka walxahaasi inay tahay mid qudhooda goyn karta. waxaanay u bixiyeen Hoi Yao, waxaanay ogaadeen in dagaalada loo adeegsan karo. boqortooyadii Song ee markaa xukumaysay Shiinaha ayaa ahayd ciddii ugu horeysay ee baaruudda u adeegsatay dagaalada. Mongoolka oo Shiinaha dhib badan ku hayay iyo duulaano joogto ah ayay u adeegsadeen markii ugu horeysay, waxaanay ku garaaceen warma afka hore ku wata baaruud gubanaysa. kadibna baaruuddii waxaa looga sii gudbay in laga sameeyo madaafiic khafiifa iyo bambagacmeedyo. qarnigii 13aad ayay baaruuddu gaadhay Yurub iyadoo u sii maraysa wada ganacsiyada Silk Road, halkaasna waa lagu sii horumariyey iyadoo la isku dayay in qaraxa ay maadadani samaynaysa la kordhiyo. si loo helo taasna waxaa la tarmiyey saamiyada walxaha ay ka samaysan tahay ee ah baaruudda, potassium nitrate iyo dhuxusha. tani waxay sahashay in loo sameeyo habka fudud tii hore ee warmaha afka laga cabeynaya baaruudda waxaana loo adeegsaday qaabka fudud kana awood badan xagga qarxidda iyo weliba in lagu isticmaalo qoryo yaryar. waxaana la sheegaa in dowladdii Cusbaaniyiintu ay adeegsatay hubka noocan ah markii ay go'doomisay Qustandiniya ama furashadii Istanbul sanadkii 1453 miilaadiga. intaa kadib hal-abuurayaashii reer Yurub waxay isku dayeen in ay horumariyaan hubkan dhanka saxnaanta iyo xawaarahaba. horaantii qarnigii 15aadna waxaa la ikhtiraacay qoryo yaryar oo wax badan ka bedelay horumarinta hubka gacmaha lagu qaato. qarnigii 18aad iyo 19aadna waxaa la awooday in la sameeyo bastoolada nooca loo yaqaano Colt 45 ama Colt 45 oo lagu magac daray ninkii ikhtiraacay oo Mareykan ahaa oo lagu magacaabi jiray Samuel Colt. wadamada waaweyn sida Ingiriiska, Jarmalka iyo Midowgii Sofiyeeti waxay bilaabeen inay sameeyaan nuqulo kala duwan oo hubka ah, gaar ahaan markii ay bilowdeen dagaaladii koobaad iyo labaad ee adduunka. sidaas darteed waxaa soo muuqday hubka caanka ah ee lagu tartamayo sida qoriga Mareykanka ee M16 iyo qoriga automatic Kalashnikov 47 AK-47 oo ah qoriga ugu caansan adduunka uguna isticmaalka badan. Soomaalidu waxay u taqaanaa AK-47 waxaana hal abuuray injineer Russian ah sanadkii 1947. laga soo bilaabo waqtigaasi adeegsiga hubka ee bani aadamku waxa uu qaaday waddo cusub. waxaa la ikhtiraacay hubka ka sareeya xagga xawaaraha iyo saamaynta qaraxa iyo masaafada uu gaari karo. maanta qoryaha darundoodiga u dhaca ayaa noqday hubka ugu horeeya ee ciidamadu ku dagaal galaan, waxaana bistooladaha iyo qoryaha fudud ay noqdeen kuwa ugu horeeya ee ciidamada booliiska adduunka adeegsadaan. ilaa maantana ma joogsan horumarinta hubka fudud iyo midka dagaalada waaweyn lagu galo. maalin walbana hal-abuurayaashu waxay ka shaqaynayaan sidii ay u gaari lahaayeen hub ka sareeya midka dunida yaala si loo xaqiijiyo awoodda militari iyo mid amni. waxaan rajaynayaa inaad qodobkan si fiican uga bogatay. fadlan asxaabtaada la wadaag muuqaalka like saar, kanaalkana ku soo biir si aan hore ugu soconno. mahadsanid.